jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jihaadkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan hal midoo xun badda ma qurmiyo hal malaay xun badda ma wada qurmiyo allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteenni ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorateen annagu maxood baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inuu gacantiisa ku qaata ma aha ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiya ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiya ma aha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u aabiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiifiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay na siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u naxaynin ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharciguu hortegi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meeluu ku dhinto heli maayo meeluu galo heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaalah ma aha inay magac xumo siiyaan askarta ma aha inay magac xumo siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gubaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad tayrani ah oo kaligiistali ah annagu manihin kaligiistali manihin rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhawayseen waa ogeedeen markii nala doorteen waana taageerteen haddana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inaan sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in lagu soo dhex dhunto cadowga waa la dagaalaynaa bannaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsannay waana siyeeriyeennaa waana ku daba jirnaa ma aha intayna soo dabamaraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintaan oo kale ma aha ma yeelayno dowladnimada in dib loo dhigo ma yeelayno dowladnimada in dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku yidhaahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan
waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumar inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyeysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelano ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay bacsanayaan waxa uu haareeyo kaliya inay ku soo dhudhuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin wuxuu aaminsan yahay islaam maaha wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani wadadii caddeed ee cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda Soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan u soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena u adeegaynaa nabad baanu keenaynaa nolol yaanu keenaynaa shaqooyin yaanu abuuraynaa sharafkeena iyo karaamadeena soo celinaynaa waxaan soo marnay waa waqtigiin qabiil iyo qabyaalad yaan baniga kugu sheegin dalleeyaysan baniga kugu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo Soomaaliya maanta meesha ay tala dhigay waa dallay siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisa maanta qabiil looga dhimatay imisa qabiil oo Soomaaliya ku dhimatay maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyadooda yaqaana yaa yaqaana hooyadii gablanta kaliya taqaana bas waa lagu soo mooday annagu ma ogolaanayno wiilal Soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdha Soomaaliyeed in noloshooda lagu ciyaaro mustaqbalkooda lagu ciyaaro waqti intuu naga lumi karo waa naga lumay mana ogolaanayno cid ku ciyaarta mustaqbalka ummadeenna iyo dadkeena dhalinyaradeenna waxaan idin ballan qaadaynaa oo Ilaahay hortiisa ciddii isku dayday inay hor istaagto qarnimada Soomaaliyeed dowladnimada Soomaaliyeed sharafka Soomaaliyeed wallahi gacana ayaan ku qabanaynaa wallahi ma idin kugu dhaartay ciddii raba ahaado waxaa ballan nagu ah oo Ilaahay inaan dowladnimadeenna iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo kaliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysaan dowladdiina ما يستاجرسان ليك ولا ممكن تاجرسان نبض يا مالا ما تاجرسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته